madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay safar ku joogay dalka Masar halkaas oo uu kaga qayb galay shir lagaga hadlayay arrimaha dalka Suudaan ayaa gaadhay magaalada Asmara ee caasimadda dalkaasi Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo markii uu gaadhay magaalada Asmara kulan la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Siyaasa Afwerki ayaa waxa ay kaga wada hadleen kulankoodaasi intii uu socday sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya labadooda wadan. sidoo kalena waxa ay kaga wada hadleen kulankaasi iskaashiga labada dhinac iyo sii joogtaynta wada shaqaynta ka dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Eritrea. sidoo kale shirkan ay labada madaxweyne yeesheen ayaa waxa uu ahaa mid daba socday shirar ay hore labada madaxweyne ugu kala qaateen magaalooyinka Muqdisho iyo Asmara, waxaana shirkan lagaga hadlayay dardargelinta waxyaabihii hore ay uga wada hadleen ee ay isugu afgarteen labada dal. Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad, Top TV, magaalada Hargeysa.